السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا يقالك السود هذا ما شاء الله تبارك الله ولاشينا ما شاء الله ما أنت ماركتي ميل بانو سعودي وحير بان ماركتي ربي فيديو يرنا كجرسية بإذن الله الكريم ولا لا يقالك آدي آد بايدي سلام يا سلام قالي ما شاء الله تبارك الله ما أنت وحن كهلا بإذن الله الكريم إن waxay rawaanooyinkeena kamid ah maaragtay dhiirigelinteena insha Allah biidnillahi alkariim maanta waxaan ka hadlaynaa walaalayaal biidnillahi alkariim waxa la yiraahdaa isku tasho qofku inuu isku tashado muhiimadda ay leedahay maxay tahay inuu qofku asagu isku tashado oo qof bini aadan ku tashanin oo dunyadan ku nool haduu noqdo qof dhalay haduu noqdo maaragtay qof uu dhalay haduu noqdo qof xaas ah haduu noqdo يعني لبدا اسقبت هذين نقدان يعني قفك بني آدم كمهمة أما قيمها يقول هذا أما في يعني حيابها أي أمارتي وفي عنتها إنه قفك اسكت الشر ما حيتها معناتها إن شاء الله بنكاد لنا ولا ليال ولا بإذن الله الكريم أنا اسكت الشر مهم آد بمهم وطهي قفك إنه اسكت الشر السجع أو اسكت الشر قف كرأ بني آدم أو الدنيا ذا تشوف كنا لونه اسكت الشر waxaa imaanaya markaad adigu isku tashato ama adigu is aqbasho oo adigu isdhaahda adduunyadan anigu kaliya ilaahay keenay adduunkan aniga maaragtay alxamdulillah rabbil alamin adduunyadan anigu laxaadkay qabo ilaahay siiyay keenay anigu maaragtay caafimaad qabo ilaahay keenay alxamdulillah rabbil alamin wa inaana qof bini aadan oo adduunkan jooga oo aniga ila mid ah inaana waxba ka sugin dhinacay noqotoba oo adigu isku tashato siiba dadka qurbaha jooga ragga iyo dumarka qurbaha jooga ee maaragtay inta badan waxyaalaha yararka isku qabsada dhaqaalaha ilmaha wax yarka ay soo gala cayda ilmaha waxyaalahaas cayda iyo xaasi xayiqsiga isku qabsada taas maanta ka hadlaan biidnillahi alkariim walaal isku tasho marka adigu isku tashato oo maaragtay aad noqoto qof asagoo isku tashaday oo niyadda ka aaminsan inuu maaragtay asoo wax keensan karo oo wax bedeli karo wax qaban karo oo wax qabsan karo xataa ciriiriga aad ku jirtay ama maaragtay haddaad maaragtay adigu is aqbasho adigu isku kalsoon tahay oo adigu maaragtay qof maaragtay isku tashanaya asagoo aad noqoto waxyaalo badan oo maaragtay marka hore caqabado badan oo ku haystay baa meesha ka baxay isku tashigu marka inuu qofku isku tashado haddaad qof bini aadan maanta ku tashato wax ka sugto oo wax kasta aad ka sugto asagii oo wuxuu noqdaba ka sugto haday cuntadii noqoto haday adiga maaragtay xabad kaleena wajiga marsata haday noqoto wax ay noqoto hadii qof bini aadan ku tashato oo qof bini aadan ku tashanayso waa dhibaato weyn weeyaan labada qof ay is dhashay baa waxay isku macaan inuu maaragtay qofka kaleeto uu markasta uu maaragtay gacanta u horsado uu gacanta inta badan gabdhaha u badan walaalayaal biidnillahi alkariim maadaama oon hooyooyinahay ilmo yar haysan waxaa laga yaabaa jaanisyada iyo fursadaha aynan raggu haystaan inayna gabdhuhu haysanin marka hooyadu sidaa iskugu tashan karaa haddaan aniga dhaqaalaba ay soo gelinin weye waxba aanan maaragtay haysanin haddii ay sidaa tahay walaal waxaad yaraysaa inaad wax barido ood maaragtay qofka aad la nooshahay aad markasta aad baahidaada tusto weligaa ha isku dayin weligaa iska ilaali hadduu qofku wax kuu garto aad la nooshahay maaragtay asagu wax kuu garto oo sharaftaada garto oo qiimahaada garto oo waxaad ugu fadhido uu garto waa maasha Allah adigu wax wuxuu kugu talagalay uu ku siiyay haday bil noqoto haday maalin noqoto ilaa qof bini aadan asagoo kala abaata markuu isaga intuu qofku bini aadanka kula noolaa intuu buuxo asaga uu soo shaqaysto wax soo qabsado adiga waxaad u baahan shaqad ku sugaysaa ilmihi baad u haysaa guriga u dayactiraysaa waxyaalo badan baad maaragtay hooyadu ay haysaa meeshi maaragtay hadduu asagu intuu ku garto qofkii uu maaragtay iska ka wax ku siiyo iska ka garta haa laakiin inta badan walaal baahidaada qarso iskuna tasho mar u baa ka bixi doontaa inta yarta ahayd maaragtay ciriiriga ku yarjito waa inta maaragtay ilmahaada ku yaryihiin ilmaha intaad yarta adiguna intaa wax badan baad qabsan kartaa waa isku tashan kartaa waxyaalo yar wax yarkay adiga lagu siiyo xataa waad hagaajisan kartaa waad si aadan qofkan baryadaada aad uga qariso wax yar baa laga yaabaa inuu ku siiyo bishan ama uu qofku wuxuu kugu talagalay adigu haddaad meel ka soo saarto isku tashato isdabarto ood maaragtay waxaadii aad ceebahaadii inta badan aadan muujinin qof waxaad noqonaysaa ahmiyad leh meel u socdo qof qiimo leh baad noqonaysaa qofka xataa aad la nooshahay
qiimo badan baad maaragtay agtiisa ka yeelanaysaa haddii laakiin baryadaadu badato ood maantana rabto berrina isku tasho walaal insha allah biidnillahi alkariim inaad isku tashatay isku day hadduu ilaahay yiraahdo qof bini aadan oo adduunyadan joogo oo u baahnayn inuu isku tashado ma jirto haddii maaragtay qof kula mid oo isku tashaday oo wax qabsaday oo meel ka soo baxay oo maaragtay baahidiisii dabooshay adigana waa daboolan kartaa baahida waa la isku nacaa baahida badan waa la isku nacaa labadii isla dhashay baa isku nacda labadii isla joogtay isqabtay awlaad isku haysa isku nacda maaragtay qaraabadii baa isku nacda baahida badan waa lagugu nacaa qofku inuu isku tashado oo maaragtay qof qiimo leh oo ilaahay maaragtay qadariyey asagana isqadariyo oo kor isku qaado oo maaragtay qof isku tashada noqo biidnillahi alkariim walaalayaal isku tashigu maaragtay aad iyo aad buu u fiican yahay inaad isku tashatood ceebahaada asturato ood maaragtay waxyaalaha isku qabsanaysaan iyo waxaasoo dhan aad ka waxayso waxa yarka ee lagu siiyey bisha maaragtay lagugu talagalay waxaad qiimayso hagaajiso isku tasho inaad maaragtay wax soo saar yeelato isku day inaad wax gabdho waxyaalaha maaragtay inta badan gabdhaha waxay ka daba jiiq dhahaan iyo raggana ilaahay baa idinka koriyey haddii aad banaanada kasoo shaqaysataan gabadha inta yarta ilmaha lagu siiyo ka xishooda biidnillahi alkariim kii maaragtay laga yaaba inuu cidhiidhi ku gelin hayo inuuna cidhiidhi ilaahay kuu gelinin 9 bilood buu caloosha ku haysaa hooyo weeyaan waa miskiinad weeyaan way u baahan tahay iyadii baa maaragtay ilmaha kusoo jeeda habeenkii oo dhan iyadii baa dhabarka ku haysa iyada 9 bilood adigu nin ragu ilaahay kaa dhiga banaanada intaad u baxdid waxaad soo qaban kartay waxaad soo xamaali karto guriga bay ku joogtaa wax yarka ilmaheeda ka soo galaya ha ka hungureenin u daabiyadnillahi alkariim ceeb weeyaan raggaan la hadlaya hooyadu isku tasho wuxuu ninkaada ku siiyey ee maaragtay uu kaas uu ku dhaho wax ku qabso mid maaragtay isku tashato oo waxeeda hagaajisato oo waxeeda yaraysato oo iska noqo biidnillahi alkariim insha allah qof baahidiisu badan tahay ha noqonin hadduu ilaahay yiraahdo baahidaada yaree markaad baahidaada yarayso waxaad noqonaysaa qof qiimo leh oo isku tashi leh oo maaragtay meel gaadha oo akhriyo adduunba meel ka gaadha biidnillahi alkariim laakiin hadday baahidaadu badato hadday jiqjiqdaadu badato hadduu hadalkaadu bato hadduu maaragtay waxbaa rabaadaada ay badato qiimo qofka kula aad la nooshaana qiimo agtiisa kama yeelanaysid adigana maaragtay qof isku kalsoon ma noqonaysid niyaddaa kaa jabaysa inta badan isku kalsoonow biidnillahi alkariim iskuna tasho ilaahayna ku tasho oo ilaahay talada saaro inuuna maaragtay ku qadinaynin biidnillahi alkariim meel baad gaadhaysaa insha allah biidnillahi alkariim maanta walaalayaal waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaa yiraahdo inta ahmiyadda ay leedahay qofku inuu isku tashado asagu uunu maaragtay is aamino inuu bini aadan u baahanin ilaahayga khaaliqa bas uu u baahdo insha allah inta yarta gacanta uu bini aadanka gacantiisa uu ku jirana inuu samro oo maaragtay uu u dulqaato inuu maaragtay siduu uga bixi lahaa ama uu siduu wax u heli lahaa ama wax u soo kordhin lahaa insha allah biidnillahi alkariim hooyadu inay wax soo kordhiso wax u diidaya ma laha inay hooyada maaragtay hadday wax soo kordhiso waxaa la hubaa oo la ogyahay ama la hubaa oo 100% hooyadu hadday wax qabsato ama ay wax noqoto reerka dhan ma aaba ma ehelba inuu isbedelayo oo ahmiyadooda maaragtay noloshooda isbedelayso oo qiimahooda isbedelayo oo sharaftooda isbedelayso biidnillahi alkariim aabuhu waxaa laga yaabaa inuu maaragtay reerkiisa bis wuxuu hela uu siiyo ama uu meel kala geeyo laakiin hooyadu waxaa laga yaabaa dad dhan oo dhinac kasta ka imaanaya inay maaragtay ay kafayso ama ay noloshooda kor mariso ay hagaajiso biidnillahi alkariim isku tasho ilaahayna tala saaro maanta biidnillahi alkariim waxaan ka hadlaya walaalayaal qodobkaas isku tashiga ahamiyadda uu leeyahay iyo inuu maaragtay baahidaada badan ay maaragtay aad qarsato insha allah biidnillahi alkariim hooyooyinkan ka hadlayaa ilmaha haysta yarka ah u fiirso ragoo waxaad u fiirsataan ilmaha yankeeda adigu dhashay markuu wax ku weydiisto maaragtay wax u baahan yahay hooyadu waa sidaas oo kale markayna waxba haynin gacanta ku haynin waa ilmahaada oo kale haddaad iyadii aad maaragtay qiimaheeda aad garan weydo inaad maaragtay aad qiimayso oo intayn waxba ku warsanin aad iyadii waxa ugu talagasho oo aqli yeelato rag badan oo aqli la maasha allah waa jiro oo maaragtay haweenkooda laakiin kuwa ku adag ee dhiba ogoleen inay maaragtay banaankana wax ka soo qabsato isagina uu wax siiyo